Pakistan waxa xilligaasi kala weynaa dagaalkii Afghanistan iyo midowga Soviyetka ka dhaxeeyay. Mareykanku xilligaasi waxa uu aad u raadinayay inuu gobolkaasi ka helo ama ku yeedho saaxiib aad ugu dhow si uu halkaasi uga taageero kooxihii mujaahidiinta ee dagaalka kula jiray ciidamadii cascasa ee Soviyetka. Mareykanku wuxuu doonayay in dagaalka halkaasi ka socda ee mujaahidiinta iyo ciidamada Ruushka ka dhaxeeyay aad loogu jibiyo Ruushka, waxaana uu gobolkaasi ka helay saaxiibkii uu raadinayay oo Pakistan ayaa noqotay saaxiibkaasi. haddaba si qorshihii Mareykanku dhigayay ahaa in Ruushka lagu jibiyo dagaalkaasi ugu xumaan ama ugu fashilmin, Mareykanku waxa uu isaguna meel hoose iska taagay inuu farageliyo arrimaha gudaha ee waddanka Pakistan ka jiray ee barnaamijka nuclearka ay dhisanayso. Midowgii Soviyetka waa uu burburay, Mareykankuna waa uu gaadhay hadafkii uu doonayay, balse Mareykanka waxaa ka lumay raadkii Dr. Cabdiqaadir Khan. Pakistan way hirgelisay hadafkeeda, guushiina way gaadhay. Sanadii 1998 dowladda Pakistan waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday inay tahay awood nuclear ah oo aan cidna la gorgortami karin, kadib 5 tijaabo oo qunbuladaha nuclearka ah markii ay samaysay. Pakistan maanta waxa ay ka tirsan tahay dowladaha ugu awoodda badan caalamka, waxayna qayb ka tahay awoodaha yar ee dunida ku gaashaaman hubka waxgumaada ee nuclearka. Pakistan waa waddanka lixaad ee ugu badan ee haysta madaxyada nuclearka xambaara, waxayna ka horeysaa waddanka ay cadowga yihiin ee Hindiya. sidoo kale waxaa xusid mudan in Dr. Cabdiqaadir Khan uu hadda nool yahay isagoo ku nool waddankiisa hooyo ee Pakistan. fadlan aragtidaada hoos noogu reeb waxa ay kula tahay Dr. Cabdiqaadir Khan waxa uu badbaadiyay waddankiisii iyo diintiisii, wuxuuna ka dhigay dalkiisa Pakistan waddan aan lagu hiran karin. daawada mar kale sii sheer garay muuqaalkan haddii aad ka heshay mahadsanid.